waxaa dhammaan heegan la geliyay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo wacad ku maray inuu weerarayo Soomaali diidka qurmiska abaadweynta iyo gooni goosatada cadowga ee dalka Soomaaliyeed doonaysa inay kala goyso meeshii aan rabnay iyo taladii shacabka Soomaaliyeed iyo kacdoonkii shacabka Soomaaliyeed oo dhaboobay. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kulanti waana wanaagsan dhamaan ummadda Soomaaliyeed goob kasta iyo goor kasta joogtaan waa barnaamijkeeni iftiiminta xaqiiqooyinka iyo halganka ummadda Soomaaliyeed. War bishaara abaan idin wada, war gobonnimo abaan idin wada, war aad ku farxi doontaan ayaan idin wada. barnaamijku haduu ku soo gaaro si shargaray hadii salaadi ku joogtana u soo tukobad hayna kale hadii kale nabiga ku salli Allahumma salli ala sayidina Muhammad. waayahay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo tuutihii gashaday ciidankii xoogga qaranka Soomaaliyeed oo heegan la geliyay meel kasto ay joogan. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo saacad ka hor barnaamij waraysi ah oo ay ka qaaday Al Jazeera ku sheegay in dhammaan ciidanka qaranka Soomaaliyeed uu heegan geliyay gacan birana ku qaban doono oo weerari doono cid allaale iyo ciidii qarannimada iyo midnimada ummadda Soomaaliyeed faragelisa ama isku dayda. war farxad la weeye waa war aan sugaynay. madaxweynuhu waxa uu ku saxan yahay waa sheegaynaa wixii dhaliishiisa ana waa u sheegaynaa. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu yiri kadib markii aan dhageystay aqoonyahanka waxgaradka la taliyayaasha arrimaha siyaasadda dalka Soomaaliya ururada bulshada isimada kadib markii aan abla-abiyay oo rogrogay arkayna sawirka iyo hor yaalla ee ah maanta dalkii Soomaaliyeed inuu haadaan ku dhacayo in diintii laga tagay in dhaqankii laga tagay in ay maanta marayso in geeyigii Soomaaliyeed iyo midnimadii ummadda Soomaaliyeed in la kala goynayo waxaan qaatay go'aan dagaal ah oo aan la dagaalamayo cid kasta oo isku dayda dalka Soomaaliyeed inay kala goyso ummadda Soomaaliyeed kala goyso diintooda cirdigooda iyo sharafkooda iyo karaamadooda oo u dhaartay cid kasta oo wax u dhimaysa dagaal baan ka xigaa. madaxweyne kugu maalay waa kugu bogaadinaynaa waa kugu taageersanahay aad iyo aad baad u maasan tahay maadaama aad dhageysatay talooyinkii shacabka Soomaaliyeed iyo kacdoonkii ummadda Soomaaliyeed iyo waxa weeye warbaahinta talooyinkii aanu ku soo marinaynay oo aanu kulahay warguntiga dhiisha ka dhig war kariyaha dhagax gasho war hadii marba maxastaadi marba hadii guntigaaga la baadho sharaf ku hadlay iyo gobonnimo ku hadlay ma jirto. waxa doonto cun waxa doonto burburi waa sahalo laakiin dalka hadii la boobayo oo dalkii la kala goynayo oo ummadii la kala jarayo madaxweyne wax dambe oo ku hadhay ma jirtee waa inaad ka dagaalantaa maadaama aad ummadda Soomaaliyeed cabashadoodii iyo kacdoonkoodii waxa weeye aad tixgelisay aad iyo aad baad ugu mahadsantahay. haddaba se wax u socdaan waxa heegan la geliyay dhammaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed sababtoo ah waxani wax la daawan kara ma waxan maanta horteena ka dhacaya waa ku day weeye waa la inagu dayayaa ku daygaasi mar hadii geerkaas ku galana waa sidoo ku galay adduunyadana maanta waxa weeye ninkii xoog leba xaaja u toostaa. Venezuela waxa ka dhacay maanta lama arag iyo lama maqal madax dal dhan oo dawlad ah eegay ayaa inta Mareykan iyo Trump weeraray ayaa madaxweynaheedii maanta maxbuus ah waad aragtaan waa maxbuus xero waxa la geeyay ciidamada Mareykanku ay leeyihiin dalkiisi waa la duqeeyay waa la wareegay adduunyada cid wax isu hambaynaysa ma jirto. dalal baa waxay qabsanayaan dalal kale ruushka waad ogeydeen wuxuu Ukraine ku dhigay adduunyada dusha la iska daawanaya. China saacad ka hor wuxuu u tagay ninkan Venezuela haysta oo wuxuu yiri waa kula jira haddana cambaarayn buu soo qoray cambaarayn waa tabtii ruushka Ukraine markuu waxa weeye ruushku Ukraine weeraray Mareykanku cambaarayn buu soo qoray sababtoo ah waxa weeye uma tagi karo waxba ma oran karo baladeegay cambaaraynayna buu yiri. China hadda wuxuu soo qoray Venezuela waxa uu Mareykanku ku sameeyay Trump waa cambaaraynayna adduunyadii waxa weeye xoog baa dalal baa xoog lagu galayaa oo dhaqaalahoodii iyo shidaalkoodii iyo nimcadoodii nimcada fashuuqi yaala la rabaa in la iska fuuqsado oo madaxweynayaashoodii sidaa waxa weeye nolosha lagu qabanayo. sidee ku suuroobi kartaa sidee macquul ku tahay sidee u qaadan karnaa sidee u dhageysan karnaa dalkeenni in la kala gooyo dadkeenni Soomaaliyeed diintoodii iyo dhaqankoodina in waxa weeye laga masaafuriyo oo laga tahriibiyo oo diinayna shaqo ku lahayn
iyo dhaqan aynan shaqo ku lahayn iyo ummad aynan isu soo gelin in maanta geeyigii Soomaaliyeed ay la wareegaan ilaahay baan idinku dhaarshay maxaa haray mar haddii sidan loo hadliyo diintana aynu ka tanaasul nin baa wuxuu leeyahay maxaa la wasaaradda diinta iyo awqaafta waa inay fiqiga shariicada islaamka fiqiga dib weyn u eegtaa waa inay wax ka bedeshaa waa inay khamriga daroogada doofaarka dalxiisayaasha gabdhaha iyo wiilasha dumarka qaawan waa inay free ka dhigtaa fiqiga shaaficigu waa adag yahay marka fiqigan waa in la bedela bimaana waxa weeye diinta la bedelaya dhaqan waa ka soo tagtay dal waa ka soo tagtay maanta waxay maraysaa in la yiraahdo diinta hal la bedelo waa kan beelow marxaatigiisa nin dhintay iyo nin dheer buu ka dhigaa waxa Xasan Sheekh Maxamuud maanta ka kacay oo ciidanka Soomaaliyeed heegan u galiyay eegay waxana kooga ah kuwa badan oo qurmis ah oo dulli ah oo Soomaalidiid ah oo munaafiqiin ah oo hoosta ka guuxaya ashar bay u noqonaysaa tan wallaahi billaahi tallaahi inaan cidna la dhageysanayn nin allaale iyo ninkii midnimada ummadda Soomaaliyeed midnimada qarannimada iyo gobonnimada ummadda Soomaaliyeed calanka buluuga ah iyo dalka waxa weeye isku qooflan ninkii damaaciya eegay dhigta la qabanaya dhigta markaas inta ringaha la fuulo si toosan naasaha looga garaacaya tusaalaha idin noqoto ila dhigta wax yar la dhigto waxa imanaya dalxiisayaal halkaan waxaan u baahanahay in fiqiga diinta ay wasaaradda diintu dib ugu noqoto oo dalxiisu hadduu meesha caburin ku dareemay iman maayo su'aal ahaan madhabka maalikiyadu wuxuu qabaa in dadka gaalada ah waxyaabo inaga xaaraanta laga iibin karo dad Morocco tagto qofka Moroccaanka ee khanziirka wuxuu ka iibinayaa qofka Jarmalka ee dalxiisa wuxuu kaloo ka iibinayaa alcoholka wuxuuna ku leeyahay diin caadi dhib ma jirto laana gaalada furuucda shariicada lagu lama hadlin وهالكي ugu dambeysay maalintan xawo aroosiye maxaa xisaabtaba keenay xoolaad ugu leedahay maxaa aniga Morocco iga galay maxaa manhajka maalikiyada iyo aniga xanbaliyada iyo iga galay xanafiyada aniga madhabkaygu waa shaaficiya wuxuu leeyahay fiqiga ummadda Soomaaliyeed oo dhan hal bedelo Morocco doofaarka iibisa buu yiri teeda labaad buu yiri quraanka lagu lama hadlayo buu yiri gaalada iyo dadka kufaarta dadka islaamka baa lagu hadlayaa bal jaahilnimada inta leeg bal iimaan la'aanta inta leeg bal doqoniinada inta leeg bal ninka halka soo fadhiistay ee shaarkii suwaalka soo gashaday gadhka weyn leh wuxuu ummadda Soomaaliyeed la soo fadhiistay shariicada islaamku muslimku bay lahaashay gaalada doofaarka waa lagu bimaana waxa weeye Soomaalidu waxay ku mahmahdaa wadiiqada yar wadada weyn bay ku guridaa fiqiga la bedelaya waxa la xalaalaynayaa doofaarka khamriga gabdhuhu inay sinistaan in la isdhex yaaco shariicada islaamku waa laga siibtay baladeegi waxa weeye waxa dalka ku soo socdaa waxa la doonayaa Berbera iyo Burcaya Hargeysa inay noqoto xereg club inay noqoto baladeegi dhaqankii iyo diintii iyo midnimadii ummadda Soomaaliyeed ba in maalin cadadka laga tirtiro waxaan arkay nin wuxuu leeyahay Netanyahu baa leeyahay halkan oo waxa maray awoowaha baa halkan maray hadda taan ana lagu horanaya waxaan arkay qaar kamid ah cabaadweynta oo intay Berbera tageen waxay dhahan halkan Netanyahu awowgiisa joogi jiray war bal jacaylka inta leeg oo isduleynta inta leeg eegay wuxuu yiri duqoodii hore lagu ogaa inuu dan qaato ciyaal baa wuxuu yiri waxaan ku faraxsanahay inaan adoonkaagi ahay oo aan ku adeeco ra'iisul wasaarihii Isxaaq maxaa loo jeeday Isxaaq Hebel baa loo jeeday wuxuu yiri waxaan raali ku ahay waa waraaqdii 95 u qoray waxaan ku faraxsanahay inaan adoon ku ahay ku adeeca marka hidde farduhu heesaha u qaadaan hiddo bay farduhu heesaha u qaadaan awrba awrka ka hor iyo saanqaadkiisa leeyahay waxay yiraahdeen Netanyahu oo wiis halka ku noolaan jiray Berbera waxaana duqeeyay bay leeyihiin siyaad bare maxaa siyaad bare baa duqeeyay halkan oo baabi'iyay Netanyahu oo wiisa ku dhintay bay leeyihiin leef iyo gaala jacayl iyo buuriyo dhuuqnimo halka laga gaaray marka dhaqanka noocaas ah eegay Xasan Sheekh Maxamuud iska daayay qof kasta oo damiir leh eegay oo dadnimo ku jirto oo Soomaalinimo ku jirto midnimo ku jirto islaamnimo ku jirta ka diiraya madaxweynuhu wuxuu heegan galiyay dhammaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed wuxuuna wacad ku maray inuu gacan bira ku qabanayo cid allaale iyo ciddii dalka diinta iyo dadka Soomaaliyeed soo weerarta soodimaheedana faragelisa saldhiga ugu weyn
wuxuu noqon doonaa maamul goboleedka waqooyi bari khaasatan madaxweyne xasan sheekh wuxuu ku shaqayn doonaa magaalada Laascaanood caasimada maamul goboleedka waqooyi bari ciidankii ugu tirada badnaa oo halkaa ciidan 45,000 gaaraya oo heegan ku ah maamulka waqooyi bari iyo ciidan gaaraya ilaa 70,000 oo Muqdisho iyo koonfur iyo ilaa Puntland laga soo daldalayo ayaa magaalada Laascaanood la geenaya sida ugu dhaqsiyaha badan waxa calanka Soomaaliyeed laga taagaya oo baryahay wallaan la isu baryeen yubiliya tolle adduunkuna waxba kama oran karo baladeeg cid ka hadli karta wallahi baana u jirin dalalku waxay weerarayaan dalal kale oo waxa weeye ummado kale ku nooshahay inta la weeraro madaxweynayaashooda la soo qabanaya cirro nolosha lagu soo qabanaya hada alcaata waliid madina hadlaya cirro hadii aanu toobad keenin tooba ya rabbi hadaanu oran ilaahay u soo noqon ummadda Soomaaliyeed fidmada iyo qurunka ka dayn nolosha lagu soo qabanaya ma ogeyday gooja cadde oo kabaha gacmaha lagu qaatay madaxweyne xasan sheekh wuxuu yiri gooja cadde iqarsay noqonaysa iqarso waxa sidoo kale isaguna heegan geliyay ciidanka jamhuuriyadda Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle oo isaguna heegan geliyay ciidankii qaranka Djibouti laba aabud baa ka dhacay laba aabud baan ku yiri si toos ah naasaha looga garaacaya cid allaali cid dalkeena iyo diinteena iyo dhaqankeena ku soo xadgudubta madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle aad iyo aad baad mahadsantahay taageerada xooga iyo ciidanka aad la dul taagan tahay midnimada ummadda Soomaaliyeed fariid baa tahay dantaada ku jirta Soomaali maanta haday kala googoodo adigana cidla laga helayo walaha wal quraamsanaya ilaahay baan ku dhaartay goostambeedka lagu gashanaya waxaad noqonaysaa mid nacnac baad noqonaysaa Ismaaciil Cumar Geelle ciidankii Djibouti oo dhan buu heegan buu galiyay xuduudina waa xiray maamulkii la yeegleelay Awdal State ciidankoodii waa la diyaariyay ugaashoodii waxgaradkoodii iyo dadkii halka masaakiinta ay halka lagu dhibaateeyay ee loo diiday xitaa dhibaatadii loo geystay xasuuq loo geystay dadkii laga laayay koob iyo 90kii dhibaatadii loo geystay baladeeg reerka 700 ee qof ee dumarkii ciyaal kale ee gabdhihiina la kufsaday waxa weeye maatadina laayay ee la xitaa uma tacsiin kartaan uma ducayn kartaan muuse juudaan yiri uma ducayn kartaan oo iyaguna diyaar ah Awdal State maamulkii waa la yeegleelay waa dhisan yahay ciidankiisina waa diyaar laba aabur ba halka ka dhacay hadday tala idin dhowdahay tabar ma haysaan tala ma haysaan cid allaale iyo cid nuu qoran kartaana ma jirto rabbil ciisan ku dhaartay waxa siciid hulun beydii sheegaya waa munaafiqnimo ciidanka ugu badan Puntland buu ka imanaya ana hadda idin sheegaya ana Puntlander ah ana Soomaali ah cid iga dambaysa ha weydiinina harti oo dhan baa ku cid iga daba hadli kartaa wallahi baan u jiraana ugaaskoodiya faylkay wada galaya ma ciidanka qaranka Soomaaliyeed waxa mas'uul ka ah Xasan Sheekh Maxamuud isaga madaxweyne noo ah wuxuu ku khaldan yahay waa u sheegayna wuxuu ku saxayayna waa ku taageerina mandate-ka isaga haysta talada dalku isaga ka go'da inuu dalka difaaco isaga loo doortay ninkii shalay marka doortay anaga Xasan maanta waa xun yahay ka dhageysan mayno Siciid Hulunbana waa shakhsi cidina lama socoto baladeegi ana idin leh ana ugaaska hartiya ana Puntlander ah eegi ana waqooyi bari ah cid iga dambaysa ha wareysanina tan iyo Boosaaso ilaa iyo Qandara iyo Xaafuun teer iyo Waaciye ilaa iyo Xidda iyo Qarn ilaa Garowe teer iyo Gaalkacyo ciidanka Soomaaliyeed meel kasto ay joogan amarka Xasan Sheekh bay ka qaadanayaan si toos ah loo soo baxay waqooyi bari waa tuberbera gelin bay qaadanaysaa gooja cadda 40 daqiiqo Soomaa tani gelin bay qaadanaysaa waa la isku leefayaa Siciid Hulunba wuxuu idin sheegay wax ka jirin waanu idin caawin karin Netanyahu baan kelmad oran karin ciidamadii Turkiga kuwii badda iyo kuwii cirka dhammaan heegan bay ku jiraan farci ma qaadi karto dalkan ana iska labiyo Xasan Sheekh ana madaxweyne ka ah cid walba oo sheeka jilicsan iyo nicla tamadana afka la jibinaya waxaad haysataan 48 saacadood inaad toobad keentaan dalka iyo dadkana si adab leh aad ugu noolaataan yalaq iyo adeerkay buu ahaan jiray Netanyahu baa hooyaday qabay Netanyahu awowgay hay awowga halkan maray buuriyo dhuugnimo ma shaqaynayso inna laga dhageysan maayo waxaan kaloo rabaa halkan aan fariin u mariyo Siciid Hulunbe iyo kuwa maciisa ah ee sheekada jilicsan ee nicda la wareegi jiray ku tusaale qaata wuxuu yiri markaan faahiye arkaan dhareerkay falaalaaq yari markaan faaduma arkaan lugta faataa faqtiri ku tusaale qaata
cabaadweyn maanta waxaa ku dhacay ku tusaale qaata Siciid Hulumbow Xasan wallahi isagoon kuu iman oon cid kale ku soo gaarin shacabka Puntland baa adiga kugu filan maalin cad baan saa ku soo qabanaynaa dibaddan ku soo dhiganaa sababtoo midnimada iyo gobonnimada ummadda Soomaaliyeed Puntland bay ka bilaabatay baladeegi Puntland bay ka bilaabataa kuna dhamaataa cid wax laga weydiinayana ma jirto ku tusaale qaata cabaadweyn wargul iyo gobonnimo soo hoyatay ciidankii ummadda Soomaaliyeed waa diyaar adiga waxa kugu waajiba ood qarankaaga iyo dalkaaga iyo diintaada ugu hilin kartaa barnaamijka si share garay like-ta barnaamijka ku boob channelka subscribe-ka saar baladeega barta Facebook boodariga caashaqana follow garay oo like-ta ku boob barbarkay ka baxdaa waa bakayla qaleen nin waliba difaaciisa bartiisa ka galo wiil iyo gabadh waajib baa saaran waxa la soo weeraray Xasan Sheekh Ma hawiye maaha waa qarannimadii iyo midnimadii ummadda Soomaaliyeed walaalka haduu yahay walaalka oo uu kula yimaado sheeko jilicsan gafuurkaad sameynaysa xaq baan ugu leedahay sharcan wa aqlan shargara barnaamijka khayr iyo baraka dirjinay assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh